بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يوم مدة الصوماليين مeel kasta caalamka joogaan. waxaan aad iyo aad uga xumahay maanta nimankii xildhibaanada ahaa ee xasan gurguurta kula shiray magaalada muqdisho ee laga sugayay inay ummadda isbedel iyo horumar u keenaan oo xasan sheekh maxamuud xasan gurguurta oo looga yahay dadka dhibaatada iyo lugooyada uu u geystay looga yahay intay maanta soo hortaageen inay yiraahdaan ku dooraynaa ku codaynaa. waxaan leeyahay xildhibaanadaas wixii la idiga filayay kumaydan kicin uma qalantaan xilka uma qalantaan xilkaana nooma hayn doontaan insha allahu tacaala ilaahay iidankiis haddaad xasan sheekh doorataan wixii idiga soo horbaxaaba way dili doonaan hadday shacabka soomaaliyeed tahay hadday nimanka afka duwan ee shabaab tahay haddii masiibo kaloo ilaahay idii soo dura tahay ilaahay waxaan idiga baranay haddaan shacabka soomaaliyeed nahay dhibaata nagu haystaan xasan sheekh maxamed dhibaata nagu haya nidaamka duma jidil dhibaato ummadda soomaaliyeed ku haya lugooyi u geystay wax horumar oo laga sugay 4 sano oo qasaare baan soo maray ma awoodno maanta 4 sano oo kale oo qasaare ma awoodno oo qasaare ma awoodno waxay noqonaysaa haddii xasan sheekh la soo celiyo rajabeelkii Soomaaliyeed ay noqonaysaa marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa haddaad xasan sheekh doorataan waa in ilaahay inkaaridu ugu ridaa oo balaayo alla idin soo dira oo la isku keen qarxiyaa oo aad marataan ilaahay saasan u weydiisanaan bal ilaahay ma idin u dhaariyo xasan sheekh muxuu inoo sheegay xasan gurguurta muxuu sheegaya madaxweyne Soomaaliyeed ma istaahilo madaxweyne maamul goboleed ma istaahilo gudoomiyaha gobolka banaadir ma istaahilo marka insha Allah ilaahay inuu soo celiyo nimankaasuna ma aha niman ummadda Soomaaliyeed ka naxaya oo caloosho u shaqaystayaal waa danaystayaal shacabka Soomaaliyeed ee muqdisho dogan waxaan ugu baaqaynaa inay ku mudaharaadaan oo qalinka iska taagaan taaniskaas waa la yaalo maanta taanis bal haysataan taaska laga faa'iideysto shacabka muqdisho jooga ay soo taageen xildhibaanada hadday xasan sheekh iyo wixii la mid ah xal weysta hadday doortaan dhammaantood halaaye insha Allah wanaag baan ka rajaynaynaa isbedel baan ilaahay ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed waa baabaaday abaaro xasan sheekh maxamuud 300 kun baa doonaya inuu ku soo codki walba 300 kun doolar ku soo ummadda Soomaaliyeed gaajo iyo haraad u maranaya waa damir laan ilaahay nagu soo celiyo waa damir laawo waa maxishoode shacabka Soomaaliyeed muqdisho degan waxaan leenahay